wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa barnaamijkan soo qaban qaabisay waxaana iskugu imaada hay'adaha caalamiga ah kuwa dowladda iyo ururada bulshada ee magaalada Kismaayo. Hay'aduhu waxay soo bandhigeen waxqabadkooda, waxyaabaha ay rabaan in ay qabtaan iyo caqabadaha ka hor iman kara iyo sidii loo gudbi lahaa iyo sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha dowladda. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Ibraahim oo Xirsi ayaa sheegay dadka Soomaaliyeed in aan loo go'aamin karin waxa ay rabaan isla markaana wax kasta oo laga hadlayo horumarka dalka in ay goobjoog ahaan doonaan ayaguna ay go'aamin doonaan. waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa weeye in aan dadka yaga loo go'aaminin baahidooda iyo rabitaanadooda ee iyagu ay miiska baahidooda lagu go'aaminayo fadhiyaan rabitaankoodana lagu dhiso wixii loo qabanayo maxaa wacay iyaga ugu xog ogaalsan baahidooda dadka iyaga ugu xog ogaalsan waxaanu la faguray arrimo badan waxaana la joogo muqtariciin maxaa cilmi baarayaal baa nala jooga su'aalo badan la weydiiyay oo laga jawaabay barnaamijka horumarinta qaranka ee sagaalaad baa soo baxay iyo tiirkiisa shanaad ee adkaysiga inay qoran tahay mashruuc kasta waa inuu ku dhex qoran yahay sidii uu u face out gareyn lahaa mashruucaas oo barnaamij kasta uu yahay self destructing mechanism inay ku jiraan kharibaad ma aha inuu isdhameeyo mashruucaas oo laga gudbo beeralayda markii la soo saaro in marketing in loo raadiyo loo gudbo dalagga in la sii kordhiyo oo meel yar lagu tabaco wax badan in loo gudbo xoolihii in la markii la nooleeyo in loo gudbo in loo raadiyo suuq ganacsiga in la furo watii aan ka hadlaynay ganacsi interregional oo maalin dhaweyd shirkii aan uga qayb galay Nairobi Borderlands waxaan uga hadlaynay in la sameeyo meelo customs oo ay Soomaalida dariska ku ageeska Afrika ay ganacsiyada ugu kala gudbaan marka waxyaabahan dhan is waafaqaan oo hal mid ah ay noqdaan ayaan doonaynaa waan dhageystay briefingkii agaasimaha guud agaasimayaasha guud xalay waxaan isku aragnay xafladii aan u qabanaynay Aadan Qaloosho Ogaaska iyo gudoomiyihiisa oo la sagootinayay inay shalay si fiican u socotayna waan ka mahadcelinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku rajaweynahay Axmedna uu xusuusiyay oo lagama maarmaan ah in hay'adaha ka shaqeynaya hawshan ee Jubbaland ka shaqeynaya waa inay ka diiwaan gashan yihiin Jubbaland shaqa socota hay'adiina ma diiwaan gashana suuragal ma aha hay'adu waxay diiwaan galiyeen koonfur dhexe Soomaaliya ma naqaan dowlad goboleedyo way Soomaaliya koonfur dhexe Soomaaliya waad garanaysaa ma umaleynaya koonfur dhexe ma jirto koonfur galbeed baa jirta Jubbaland baa jirta Hirshabeelle jira Somaliland baa jirta whatever legal statuskeedu uu yahay Puntland baa jirta Galmudug baa jirta marka taana waxaan rajaynayaa inay clear tahay cidii doonaysa inay Jubbaland ka shaqeyso waa inay register tahay marka aan af Soomaali ku dhaho annaga wasaaraddeena waxa ka go'an inay samayso bay'ad space leh oo ay dadka samafalka ah iyo kuwa doonaya inay maal gashadaanba ku shaqeyn karaan. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.